Dowladda Sweden ayaa howlgelisay gantaalaha RBS-15 oo ah Report System-ka 15aad oo ah gantaalo ridada dheer ah, gaar ahaan nooca RID ee ka seexa loo yaqaano. Waxaana loo adeegsadaa cirka cir, dhulka cir iyo badda. Sababta magaca RID ee ka seexa loogu adeegsado waa in gantaalkani uu isagu shaqadiisa qabsanayo wixii ka dambeeya marka la rido, isagoo si gaara u raadsanaya bartilmaameedkii loo saaray oo loo dirsaday, isla markaana wax laga bedeli karo haddii loo baahdo meesha uu u socdo iyo bartilmaameedka haddii ay wax iska bedelaan xisaabta. Gantaalkan oo leh nooca cusub ee loo yaqaano MK111 ayaa waxaa farsamaysay shirkadda Swedish-ka ah ee Saab Bofors Dynamics, waxaana gantaalkani uu ku xirmayaa maraakiibta dagaalka ee dabaqyada VZB Class-ka loo yaqaano ee convert-ka ah, miigaga ay Sweden adeegsato, iyo weliba diyaarado kale oo casri ah oo dowladda Sweden ay gacanta ku hayso. RSP-15 dhammaan noocyada kala duwan ee RBS-98 ee gantaalaha lidka maraakiibta ayaa qayb weyn ka qaadan kara difaacidda hawada iyo weliba badda dowladda Sweden. Dowladaha reer galbeedka ayaa aad ugu loolamaya xagga tiknoolajiyadda iyo weliba diyaarinta gantaalo haddii dalka xaalad halis ay soo wajahdo ka qayb qaadan kara badbaadada dalkaasi, iyadoona dowladda Sweden ay ka mid tahay dowladaha tiknoolajiyadda ku saleynaya hubkooda casriga ah. Muuqaalkan haddii aad dhamaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale. mahadsanid.